cudurka sida ba'an ugu faafay adduunka oo dhan dowladaha waaweynna ay u taagla yihiin sidii dalkooda ay ugu dabargoyn lahaayeen amba ay u soo saari lahaayeen dawo looga hortagi karo cudurkaasi COVID-19 ayaa haddana wadamada qaar waxay sheegeen inay soo saareen tallaal la isku halayn karo hase ahaatee xirfadda ugu weyn ee hadda loo isticmaalayo si uu u yaraado cudurka ayaa waxay tahay kala fogaanshaha dadka fariimaha caafimaadka oo loo hoggaansamo kuwa oo ay ka mid tahay in uu qofka afka xirto maaskaha si uusan cudurka ugu dhicin isna uusan u sii faafin dhanka kale waxaa iyana dhinac socda dadaallo kale oo loogu jiro sidii cudurkaasi loo xakameyn lahaa ayaa waxaa jira dad iyagu xirfadlayaal ah oo isku howlay inay sameeyaan maaskarooyinka afka lagu xirto xamdi cumar xasan oo ku nool dalka Norway gaar ahaan magaalada Bergen ayaa gacanteeda waxay ku samaysay maaskaha afka lagu xirto ee looga hortago faafidda cudurka COVID-19 mar aan wax ka weydiiyay siday ugu suurto gashay samaynta maaskahaasi afka lagu xirto ayaa waxay ii sheegtay waxay u suurto gashay tulista maaskiga waxaan hor u haystay mashiinka wax lagu tala horan waxaan u qaanay tulista dharka waxaan soo jartay dharka marada laga talo maaskiga mise dharka laga talo hana qato markaan soo jartay waxay ugu fududaatay inaan talo maaskiga afka lagu xirto sidoo kale xirfadle xamdi ayaan wax ka weydiiyay inay jiraan shakhsiyaad garab ku siiyay soo saarista maaskahan looga hortagayo cudurka COVID-19 waxaa igu dhiirigeliyay waalidkeygii in aan talo maaskiga afka lagu xirto maadaama lagu jiro waqti xumada hadda oo baahin loo qabo xiritaanka maaskiganeeto waa ka fudud yahay wuuna karoon yahay midka one time ka la tuurayo xamdi cumar xasan oo adeegsanaysa qalab ay ka mid yihiin mashiinka loo yaqaano harqaanka ama dawaarka ayaan wax ka weydiiyay inay jiraan waxyaalo kale ay ku dhiiratay inay soo saarto bulshadana munaafacaad u leh waa aan leeyahay xirfad kale oo markii laga gudbo dhinaca maaskiga afka lagu xirto waxaan design gareeyaa saaqooyinka marooyinka gabdhaha xirtaan hana qado dhinac xaflad dhinaca qato malxiisooyinka waxaan nahay arday jaamacadeed wax barta waana jeclahay inaan meel sare ka gaaro dhinaca design-ka da'yartan ku dhiiratay inay soo saarto maaskaha afka lagu xirto rabbina hibada sare u siiyay nashqadeynta noocyada kala duwan ee dharka dumarka ayaa wax badan u tari doona bulshada Soomaaliyeed iyo dadka kale ee iyagana u baahan inay si fudud u helaan Bila Maxamed Cabdi SDN TV Bergen Norway